Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga salaam meel kasta dunka ka joogtiin kusoo dhawaada channelka maanta maxaa inoo wadaa kastar aad macaan badan aad u fudud qaab fudud u sameysan kartid insha Allah waa casriyo ka dhigan kartid wax walba ka dhigan kartid oo isku qaboojiseed marka sida aan sameeyay tusi doonaa ka faa'iideysi wacan marka ugu horeysa meeshaan waxaa soo saartay digsi waxa u baahan tahay 1 litir oo caano ah hadoo ku qiyaasnayna 1 litir oo caano meena aniga soo gatay kan sajalka waaye caanaha la qasaayo maahan hadaa qasanaysid waxa u baahan tahay koobka sida caadiga meel walba laga helo oo shaaha ku cabno isticmaali kartaa kan hada aniga isticmaalo maaha kan wax yar u dhuwan yahay laakiin kuuska oo dadka dhan isticmaalaan kaas oo afartiisa ku shubanaysa 1 litir oo juusta waaye kan laakiin hada ku soo cabirinayo wax yar oo ka dhuwan yahay wax yariis oo beebeen oo ka yar yahay marka idinku tusaleysaan uu soo shubano laakiin ani litir asagoo haysta weelkaas oo igu jira kastas bebeenta ku soo harsa ujeedin laakiin cabirkiisa sax waxa waa 4 koob oo juusta waaye ujeedinbo marka waxa sameynaysaa intaas marka soo shubtid asagoo qabooban oo aadan shidin intaas ku shubinaysa kadib waxyaabaha kale ta ku soo darsanaysaa hadda meeshaan waxa ku haystaa kastar alaali kastarka jeceshaas isticmaal kartaa aan kastarka noocaas isticmaalaya 4 qaada ka isticmaala maadaama 4 bakeeri oo caano oo ahay 4 bakeeri oo caano maadaama ahay halkii bakeeri 1 qaado oo kastar oo zaaid adeegna makaan qanayo zaaid wajaqna makaan qanayo macna biibina makaan qanayo qiyaastiisa intaas waxa ku darsaday vanilla ama carfisa oo taqaanid kadib asigoo wili inta aadan shirin isku walwalaaqaysa kaligiisa isdhexkelinay waa isku walwalaaqay si oo hadhooti burbur iyo waxaas oo kaaga yeeranin hadda asagoo qabooban si fiican isku walaaqay isku dhexkelinaysa kadib dabka soo daarinay isla arkayna markaas haddii aad noo cusub tahay oo channelka aad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad inaad subscribe noo taabato kambalka on ka dhigato insha Allah wixii fikradaada ahna commentiga noo soo wadaagto marka isku soo dhaxgaliyo waa aragteen kadib dabka soo saaray macnaha ku soo shiday hadda waa ku walwalaaqooya inaa gacanta ka diisid maahan haddii kale oo ka adkaana macnaha burbura ka naqanaas oo taas u dhicin waa in aad walaaqitaanka ka deynin oo haddii aad geedkan ku walaaqaa heli kartid way si fiican tahay wax aad shiiday oo kale oo naqana oo makiinada ku qasto oo kale soo burbur u naqanaya macnaha oo liisho u naqanaya daaqada isticmaalaysa xitaa caadi waa laakiin kana si fiican tahay liisid asaga dhan soo liisho u yahay waa ujeedin marka si fiican isku dhexgelinaysa asagoo dhan gacanta ma ka deynaysid asaga dhan wuxuu soo karaa macnaha 5 daqiiqo xitaa wax dhammeyn oo soo karaa inay ka daashid maahan teeda kale sokortiya ka ilaaway 1 bakeeri sokor oo soo darso ujeedin adartu aad basakada damcaan aad ritid la qiyaastiis internet ka faay ku tahay kadib hadeertaan diyaar inoo tahay soo ujeedin diyaar inoo tahay waa dejinayna inta kale ida bas dhameystiraysa markii la soo dejiyo oo la soo guro macnaha ida bas si adkaanaysa sidana la rabaa hadda waa kana weelasha soo shubshubanayna meelashaan soo shubanaynaa kadib waxyaabaha kale waa isla arkaynaa soo ujeedin bahdaa marka arkaysay macnaha iyo hadda inuu wax yar si adkaanayo waa ujeedin markii fridge la sii gelin wax qaad lagu darsanayo naqana sidaas soo baxay farool ayaan soo qaatay oo kor u sharxaa wax alaali waxa haysta kor u soo sharxan kartaa moos faroolo waxa haysatid faroolada jeclaaday korka soo saarsa ujeedin fridge ka gashanaysa ku soo qabooba kadib isku qaboojiya ku dhahay